السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan bilaabanaa insha Allah tacaala haddii Ilaahay yiraahdo in aynu barano waxa la yiraahdo blogger ama blogger website sida blogger loogu dhiso aynu baranaa insha Allah tacaala. dhowr nidaam oo aad u fudud ayaa jira. nidaamyada aadka u fudud ee la adeegsado hadda uguna faa'iidada badan waxaa kamid ah blogger website. runtii waa sir haddaad adeegsatid blogger website oo aad dhisatid waliba muddo yar kooban ayaad ku dhisanaysaa blogger website. muddo yar oo aad u kooban ma ku dhisanaysaa, kadib waxaad ku xidhanaysaa ads ama AdSense ayaad furanaysaa. kolka Google ayaa kugu xayeysiisan doona wax, kadib xayeysiiska adiga lagu xayeysiisto ayaad lacag adigu ka samayn doontaa adiga iyo Google, kadib lacagtood kala qaybsan doontaa. waana meesha ugu fudud ama waa pointiga ugu fudud ee hadda ay dadku ka shaqeystaan. blogger website ayaynu insha Allah tacaala isku day doona in aynu dhisno, waliba aynu ku dhisno mobile, waayo mobile baa inta ugu badan la isticmaalaa ama mobile baa aynu isticmaalnaa inteena badan. sidee ayaad ugu dhisi lahayd blogger website mobile-kaaga aad uga shaqeysan lahayd lacag? hadda ayaynu gudagelinaa sida loo samaysto blogger website dhammaystiran ayaan sameynaynaa. Google AdSense ayaynu ku xiri doonaa, waxaanu ku xiri doonaa wax walba u baahdo waynu dhammaystiri doonaa insha Allah tacaala. welcome ayaad leeyahay. waayo marka koowaad waxaan soo furanaa platformka ama Google Chrome haddii kugu jiro ama Google caadiga. haddana waxaan soo furanayaa Google Chrome-ka. markaad soo furto Google Chrome usan kugu soo kaco, waxaad sameynaysaa waxaad ku qoraysaa halkaasaad ku qoraysaa google.com. si toos ayaad qoraysaa markaad Google soo gasho ayaad si toos u qoraysaa google.com. si toos ayaad qoraysaa Google-kaad ugu qoraysaa google.com. markaad google.com qorto si toos google.com aad u qorto waxaa ku soo bixi doona meeshaas ay ku qoran yihiin 8 dhibcood ayaa ku soo bixi doona. kadib 8 dhibcood ayaad ku dhufanaysaa. 8 dhibcood ayaad ku dhufanaysaa. marka 8 dhibcood ku dhufato xaggan hoose ayaad u soo degaysaa. waxaad imanaysaa meesha ay ku qoran tahay blogger. kadib markaad timaado meesha ay ku qoran tahay blogger waxaad soo dooranaysaa hadduu kugu jiro Gmail-kaagu waa okay. hadduuna Gmail-kaagu kugu jirin login soo dheh, kadib geeska sare ayaad imanaysaa aniga keeda ku qoran tahay. marka hore san ayuu kugu soo baxayaa. markaad saa ugu soo dhufato Gmail-kaaga ee aad ku soo dhufato aad soo doorato kaad u baahnayd inaad ku adeegsato blogger ama aad ku dhisto blogger-ka. markuu san kugu soo baxo waxaad qoraysaa title-ka ama magaca xagga sare ka soo muuqan doona blogger-kaaga ama blogger website-kaaga. markaasi tusaale soo qaadan hadda mid tusaale ayaynu sameynaynaa oo ku saabsan tusaale wararka oo kale ku saabsan. waxaan odhanaa kale war tusaale waa magaca xagga sare ka soo muuqan doona website-kaaga, laakiin maaha sidan oo kale ayuu magacu noqonayaa. marka waxaan ka soo dhiganaa tusaale waxaan ka dhiganaa weriye ad waxaad doontaad bixinaysaa. weriye Axmed baan u bixinayaa, magaciisa ku qoray xagga sare aniga, laakiin adiga xagga sare waad ku soo qorataa website-kaaga wuxuu ka hadlayo ama website-kaaga magaciisa caadiga ah saxda ah ayaa halkan ku qoraysaa. ani haddaan ku qoray weriye kadib waxaan ku dhufanayaa nagastiga ayaan ku dhufanayaa xaggan hoose. kadib address-ka ayaan u sameynaa. address-ka waa kaad ku soo geli doontaa dhow www.blogspot.com ayuu ku soo qabanayaa oo weli domain-ka weynaan iibin oo marka hore magacsan ayuu kugu soo baxaya. laakiin isagoo blog post-ya aynu doonaa inaan dhisno aynu ku soo darro Google-ka laga arko, kadibna soo gelino warar soo gelino. hadda waxaan gelinayaa weriye ayaan ka dhigay kii hore. weriye ayaan ka dhigay weriye not hadduu available yahay available buu qoranayaa. haddii la qaatay wuxuu qoranayaa not available, macnaheedu kan hore loo qaatay buu jeedaa. marka magac saxa tusaale waxaan qoranayaa weriye 24 oo kale qoranaa
wariye 24 waa la qaatay inuu yiri wariye 23 aynu ka dhiganaa wariye 23 waa sax lama qaadan wali kolka tusaale waxaan ka dhiganaa addresskana wariye 23 kadib waxaan sameeynaa in the back thread ayaad halkan hoose ay ku qoran tahay save ayaad ku dhufanaysaa kadib markaan ku dhufato save hadda waxaana loo sameeyay website-keenu wuu samaysan yahay waxaan ka ogaan xagga sare ee bidixda ee saddexda ilig baad ku soo dhufanaysaa kadib waxa ku soo baxaysa shaxdan wuxuu ku sheegay in website-kaagi abuuran yahay oo la sameeyay ayuu ku sheegaya magaciisa waxa la yiraahdaa wariye halkani waa meelihii waxaad website-kaaga ka dhisan gareyn lahayd oo yacni ka qurxin lahayd waxna kaga soo dardiri lahayd kan waxa la yiraahdaa post waa meesha aad ka soo gelinayso postiyada ama wararka sida Facebook post loo soo geliyo kale halkan waa statiski oo waa intii dad ay ku soo booqatay tiradoodii iyo wixii lagu soo koobaya halkan comment weeyaan oo waxa cidii comment ka bixisay halkan waa meesha ugu muhiimsan in hadhow si fiican uga hadli doono waxa la yiraahdaa halkan earnings ama earning balada waa meesha hadhow aad Google kaga xirisid lacagta ama qaybta lacagta aad kaga sameyn doontid weeyaan halkan waa pageskii uu ka koobnaa website-kaagu halkan waxa ku qoran layout waa meesha laga edit gareyn doono pageskaaga ama meesha aad ka edit gareyn doonto pageskaaga oo ka bedeli doontid iyo waxyaalo badan oo kale waliba team oo ah meelaha ugu muhiimsan iyagu oo meeshan kaga soo dari doono blogeenan waa meeshan kaga soo dari doono blogeenan isheeg team ama design qurux badan oo template ah oo template-kii aad WordPress isticmaali jirtaan baydaad garanaysid waa template-kii la isticmaali jiray meesha lagaga soo daro kuwa template qurux badan ayay isagana ku soo dari doonaa insha Allah taala halkan waa settings waa meel iyaduna aad muhiim u ah waxyaalaha aynu u baahno dhammaan ka bedeli doono website-ka oo waa meel inta badan aad u isticmaal badan nooga baahnayn laakiin real-listiga caadiga ee wax ka soo qorqormaya ay noqon doona halkan u dambaysa waa view blog oo hadda aynu ku dhufan doonaa waa meesha blog-kaaga aad ka eegayso kolba noocu noqon doono ee loo soo bandhigi doono dadka okay haddaynu ku dhufano blog hadda maxaan noo tusayaa magaceena waxa la yiraahdaa website-keena magaciisa waxa la yiraahdaa wariye ayaa la yiraahdaa website-keena magaciisa wariye hadda waxaan doonaynaa inaan ku soo shubno waxba kuma jiraan waa there is nothing here waxba halkan kuma jiraan waxaynu ku soo daranaa team qurux badan oo aad u nashqadaysan oo uu hadhow inooga muuqan doono website-keenu si qurux badanna loo soo booqan doono xagga sare haddaynu eegno halkaa u sarreysa waxaa ku qoran website-kaaga domain name-kiisii oo ah blog post xagga dambe ka raacsantahay haddaan ku dul dhufto kadibna qalinkaa ku dhufto waxaad arkaysaa halka kaaga muuqda website-kaaga magaciisa iyo URL-kiisa wariye 23 blogpost.com hadhow inta dambe waan ka maseexi doonaa markaan domain-ka iibsano waxaan ka dhigi doonaa .com live oo sax ah oo si caadi ah looga helo markaan domain-ka u iibsano haddii aynu ka soo noqono okay mar kale haddaynu ku noqono xagga setting-ka san ayuu kugu soo baxaya saddex falaar hadaad ku dhufato okay haddii dib u soo noqono labadan ayuu kugu kala qaadmayaa saa ula soco labadan ayuu kugu kala qaadmayaa oo ah ii sheegay labadan ayuu kala qaybsamaya hoose ee xaggan hoose ku qoran oo ah labada qaybood qaybta hadda cross saaran yahay iyo qaybta kale oo xaggii website-ka soo kulba noqonay xaggan waxa ka dhisan gareysay halka ugu horeysa haddaynu tagno waa settings baan ku dari doonaa hadda waqtigu noo saamaxo oo halkana setting-ka haddaynu ku yar darno setting-ka ku dhufano marka koobaad setting-ka ku soo dhufo marka soo dhufatid wariye waa kana description samee website-kaaga wuxuu ka hadlayo waxaan halkan ku soo gudbinaynaa baan tusaale ka dhiganaa saas ku qorso description-ka hadhow ka soo muuqanaya website-kaaga hoostiisa iyo wuxuu ka hadlayo haddii save nidhaahno waxyaalaha kale setting-ka weyn bedeli doonaa dhammaantood weynu xaggan haddaad doorato hadhow cilada ayaa yar yimaada kuwaasi offer ka ahaadaan taas offer ka ahaato tanna offer ka ahaato kan labadaasi offer ka ahaadaan
privacy waa ku furnaado isagoo ana ku ahaado halkan waa meelaha ugu muhiimsan ee hadhow jeena aynu kaga soo xiri doono domain-keena oo aynu kaga domain-ka marka lagu xirayo halkan la yimaada hadii ka socono https taas hadii ka baqtiisan tahay hadii tan ka baqtiisan tahay iyana ka baqtiisan on ka dhigo oo badhanka yar on ka dhig hadii off ka tahayna xagga sare ayaa noqon doonta aan secure noqon doonin oo not secure ay soo qori doonaan website-kaagu soo secure kugu ahaado xaggaas on ku ahaato okay hadii ka socono xaggan weyn dhamaantood waxaan wada habeyn doonaa halkan waxa ku qoran 7 post ayaa ku qoran halkan waxa ku qoran in 7 post oo gelinka ay ka muuqan doonaan website-kaaga xagiisa sare waad bedeli kartaa oo waxa doonta ayaad ka dhigi kartaa okay hadda waxaynu halkan uga baahanay ma jirto step ayaan dhamaantood u maranaa oo 10 taxana ayaan ka dhiganaa insha Allah taala waxaan dhisanaa website tayo leh oo qurux badan oo aad runtii markaad san aan u dhiso si lamid aad u dhistid aan ogahay inaad ka sameyn doonto lacag insha Allah taala halkaas ayaan fiidiyoga ku soo koobi doonaa insha Allah taala casharadana waxay noqon doonaa kuwa taxana ah waana sida website free ah loo dhiso oo laga helayo Google-ka waana free wax lacag oo laga siin xawayareed ma jirto hadhow domain-ka ayaa la qiimo yar jaban aad ku iibsanaysaa runtiina si nidaamka loogu iibsadana ana ku sheegaya insha Allah taala casharadan taxanaha ah la soco ha ka daalin